السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabta channelkan Axmed Galayr waxaan ugu talagalay suuqyadan online-ka ah ee laga shaqeysto iyo qaabkii dhalinyartu uga faa'iidi lahaayeen iyo xogahan hayo qaabkan la wadaagi lahaa. Marka channelkan Axmed Galayr hala subscribe gareeyo oo haloo taabto gambaleelkana hala taabto hadba xogaha aan soo geliya sa idiin soo gaadhaan oo aad uga heshaan aqoon markaa wax idinku kordhinaysa. Markaa soo dhawaada casharkan aan duubayana waxa weeye cryptocurrency ba hadda ku saabsan yahay. Videoyo oo forex ku saabsan laftarkooda aan duubay way jiraan aan soo gelin laftarkooda waan soo gelinaya biidmillahi kariim. Marka hadda casharkan aan ka hadlayo waa cryptocurrency lan eegno crypto bubble iyo xaaladda guud ee suuqa maanta meel ay marayso. Suuqu wuxuu sheegayaa green buu sheegayaa oo wuxuu sheegayaa inuu maanta indhaha u roon yahay. Dadku badanaa markay intaa arkaan suuqa hore loo soo fadhiistaa oo kursiga hore loo soo qaataa si loo maalgashado oo lacagtii USDT da ugu jirtay ay coinan ugu gataan. Laakiin suuqu markuu sidan oo kale yahay inaa xog badan raadisid bay ku fiican tahay. Marka lacagtan OKB oo kale percent fiican bay kacday 117%. lacag kale oo 100 xoogaa kacayna way jiraan. Marka suuqu fiican yahay isha lagu hayo xogtiisana badan la raadiyo. Balan isla eegno coin market cap balan isla eegno coin market cap waa kan isaga laftarkiisu percentiyo bayna tusayaa marka aynu eegno 1 hour iyo 24 hours ki iyo 7 days ki. Marka lacagtan crypto currency ugu weyn ee la dhaho Bitcoin ama BTC waxay gaadhay haygeedii ugu sareeyay 121 bay maraysaa hadda. Walow ay 123 tagtay oo la soo celiyay oo hadda 121 ay marayso. Marka which is good waa news aad u fiican inay haygeedii hore ee 112 ka ahaa markii hore ay joogtay inay ka kormartay oo ay joogto hadda 123 buu markii hore gaadhay meelahaas haddana 100 bay joogtaa. Marka waa chance fiican laftarkeedu oo chance su'aal lacagahan cryptocurrency-ga ay hayso dominance-geeda. Markaad eegtaan dominance-ga suuqa crypto waxa haysa Bitcoin baa haysa boqolkiiba 58.7 bay haysaa. Lacagta kale ku xigtaa waa Ethereum boqolkiiba 8 adu boqolkiiba 70 bay haystaan bay cagacageynayaan 30 kale lacagaha kale ku jira. Marka waa kan value-ga lacagta 24 saacadood dhex marayay 450.76 billion baa dhex maraysa 24 saacadood soo. Wow. Market cap-ka suuqa lacagta soo gashay ku jirta 4 trillion bay gaadhay which is meel fiican bay maraysaa iyada laftarkeedu 3 trillion iyo xogaa ku noqonaysa 4 trillion bay ka xidhatay. Coinska la soo gelinayo maalmaha ka sii dambaysa way sii badanayaan haddii marayaan 19.44 milyan oo coin baa ku jira suuq oo dhan maaha waxay ku jiraan coin market cap-kan marka inoo muuqda shaashada ka muuqda. Halkana waxa ka muuqda exchange-yada lagu trade gareeyo ama lagu trade gareeyaan oran trade kaliya muqaabilsane wax lagu kala gato oo coinanka ku invest gareysanaysid. Ba 840 exchange baa jira. Marka waa suuqu marka ka sii dambaysa uu sii ballaaranaya. Halkan laftarkeeda haddaynu eegno fear and greed-ka wuxuu marayaa 63 in cabsidu yar tahay buu sheegayaa oo dadku ay niyayaro ku jiraan boqolkiiba 63. Marka which dadka jeeb yaraha ah aragtidaas waa aragti u fiican laakiin dadka jeeb weynaha ah iyagu meelahan oo kale markay tagto bay lacagahooda geliyaan. Markay meelahan marayso halkan iyo halkan markay gaadho waaba iska gadaan oo iyagu lacagahooda faa'iidada la baxaan. Markay
dadka jeebiraha cabsadaan oo lacagahooda ay cabsanayaan bay iyagu lacagahooda geliyaan. marka suuqan lagu sheegayo faa'iidadiisu waa markuu kor u kaco inaad faa'iidada ka qaadatid, markuu hoos joogana aad gadatid. buy low sell high, qaacidadaas ay adeegsadaan dadkan suuqa jooga. marka overviewgiisu waa intaas. coina waxaa jira hoos joogo oo faa'iidooyin fiican aad ka samayn karaysid, laakiin aan hadda aanan advice idinku siinayn talo. waxaa laga yaabaa dad intay arkaan inay iska gataan, marka inaad adigu baadhistaada raadisid oo adigu baadhid bay ku habboon tahay. way jiraan dad suuqa jooga oo youtube intay soo fadhiistaan 10 coin ugu fiican ama dhowrka coin faa'iidada ugu fiican laga samayn karo dadka intay la soo wadaagaan aanay dadkii faa'iido ka samaynayn, hadhow khasaare ay kala kulmayaan. dadkaasina aanay u ahayn inay dadka faa'iido u sheegayaan, laakiin iyagu youtube-kooda in loogu daawado viewska ay ku helaan ay ka tahay. marka waxaan idinkula talin lahaa, talada koobaad aan siinayo, inaad raadisaan xogta suuqan, idinku aad soo barataan suuqanna. inaad internetka ka baratid wuxuu ka fiican yahay inaad minter wax ka baratid oo marba wixii aad soo aragtid ku celin karaysid, weydiin karaysid, xog ka qaadanaysid. suuqanna inaad technicalkiisa baratid iyo qaabka wax loo gato iyo qaabka coinanka loo baadho, which is good. laakiin waxaa kasii fiican inaad mindsetka aad suuqa ku joogi lahayd inaad diyaarsatid marka hore, oo mentor heshid mindsetkan kula dhisa iyo qaabkii suuqanaad u joogi lahayd. haddii kale marba derbi baad soo taabanaysaa. coin baa laga yaabaa faa'iido fiican kuu waday oo in yaroo casaana galay, faa'iido fiican aad ka samayn lahayd oo in yaroo casaana galay, inaad iska gadid oo aad khasaare ka qaadatid. istaahil lacagtaada inta kale iyo kaa lumine, bal sell iska dhe. marka suuqu marka uu hoos u daato DCA ku samee, baadhisteeda gal. weliba coinan fiican oo the long term aad ugu jirtay haddii ay jiraan oo portfolio ku jira, kuwa ha gadin ee marba DCA ku samee, saad faa'iidadaadu marba faa'iido fiican ay usii noqoto. laakiin coinanka kale ee maalinka qadayska ah, iyaga inaad meel aad ugu talagashay ay jiraan, meel aad ka raacaysid iyo meel aad uga hadhaysid. taas technicalka ay ku xidhan tahay iyo mindsetkaaga, inaad dulqaadkeedii leedahay suuqaas halkaa intuu ka dhaqaaqo inuu halkaa tegi karo. waa intaa keliya, dulqaadkaas mindsetkaaga inaad iska dhistid oo suuqa markaasaad faa'iido ka samaynaysaa. dhalinyaro waxaad arkaysaa hadda soo galay oo laakiin mindsetkoodii markay mentor u daba fadhiisteen faa'iido fiican samaynaya. maalintii kule 300 400 baan coinanka ka samaynayna, coinkaasaan faa'iidada kaga jira. taas waxa weeye in mindsetkii laga dhisay, maaha inay adiga technicalka kaaga fiican. waxaa laga yaabaa adigu inaad muddo ku jirtay oo qayb technicalka kaga fiican tahay, laakiin iyagu ay garanayaan qaabkii coinkan markuu halkaa gaadho halkaa ay uga baxayaan, ama stop loss ku xidhaan, ama ay automatic ahaan iyagu uga furaan, manuel ahaan uga furaan iyagu, oo markuu meesha gaadho ay iska xidhaan, iska selgareeyaan. marka talo waa taas. talabaad waxa weeye suuqani wuu ka ballaadhan yahay inta dadku ay ka sheegayaan. xogteeda markasta raadiya. jisaan anigu mar walba dadka ku promote gareeyo inaan kula taliyo suuqa forex inay tradekiisa bartaan, laana wuu ka faa'iido badan yahay. waa xirfad noloshaada wax weyn ka bedeli karta oo aad mustaqbal ka samaysan karaysa haddii aad technicalka iyo mindsetkeeda aad baratid. lacagaha aad ka soo heshidna crypto ku maalgashan karaysa. marka talooyinka noocaasaan idin siinayaa. youtube-ka axmed galayr subscribe gareeya, kusoo biira. xagga hoose description-kana waxaan idiin dhigayaa telegram channel-kagan idiin dhigayaa, laftarkiisa soo raaca oo xogaha markaas suuqa iyo ka jiraan dhalinyarta kula wadaaga. marka adiguna afkaartaada iyo waxaad ka qabtid waad kusoo qori kartaa, oo marba waxaas magaranaysaa haddii wax lagaa caawinayo, haddii aad waxaad aragto aad nala wadaagaysid. marka soo dhawaada. videogu inuu dheeraado uguma talagelin, intaasaan rabaa inaan kusoo gudbiyo. waa idin salaamaya.